shirkadda bilicdan caawa aynu halkan u joogno garoonka bilicdaa la samaysay Stermet Construction Company wasiir ku-xigeenka dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa caawa wuxuu tijaabinayay soo garoonku dhamaaday leyrkii buu tijaabinayay isaga iyo shirkaddu waxaan u mahadnaqaynaa raggii sida qiimaha nolol shaqeeyay hadalkayga iyo mahadnaqayga waxaan u dhigan doonaa xafladda weyn sawaadii mahad celinaya wasiirada waxa kale oo mahad celinaya shirkadda garoonka dhistay ku soo dhaweynayna gacmo furan caawa dareenkayaga iyo shucuurtayada ma qiyaasi karno halkan waxa nala joogteen idinkoon naga mida iyadoo boorka iyo habaaska iyo siigada iyo waxa weeye roobkuba inagu hayo caawana waxa ku soo dhawaanaysaan isagoo cagaaran oo iftiimaya waxaananu idin leenahay waa tacabkiina iyo ku raaxaysta waxa jira muuqaalo aynu ka samayn doono garoonkan oo shalay iyo maanta la yiraahdo garoonku siduu ahaa iyo caawa siduu yahay waxa ka garanaysaan saacadan oo goor dambe ah waqti habeenimo saqbad lagu sii dhow yahay shucuurta dhalinyarada yaryar ee under age ka muuqata farxadooda damaashaadkooda iyo soo dhaweyntooda ka arkaysaan baahida garoonka loo qabay waxaan idin leenahay aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa kor Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad leh mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa odayaasha dhalinyarada ciyaaryahanada wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha guddida sportska degmada maxamed mooge guddida garoonka dhammaan ciyaaryahanada shirkadda bilicdan caawa aynu halkan u joogno garoonka bilicdaa la samaysay Stermet Construction Company waxaad moodaa caawa habeen ciida baad moodaa wasiir ku-xigeenka dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa caawa wuxuu tijaabinayay soo garoonku dhamaaday leyrkii buu tijaabinayay isaga iyo shirkaddu sidaa daraaddeed waad arkaysaa oo dhalinyaradu xiisaha ay u qabaan garoonka markiiba ka buuxsamay garoonka xiise weyn iyo baahi weyn bay u qabaan waa taasoo farxadda wajiyadooda ka muuqata waa arkaysaan waxaad moodaa habeen ciideed baad moodaa siday u faraxsan yihiin marka waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiir ku-xigeenka dhalinyarada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo runtii degmada maxamed mooge aad mooday inuu u dhashay alhamdulillah salatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah wala ilaahay baa mahadle caawa oo habeen qiimo badana aniga ku hadlaya magaca shirkadda Stermet Construction waxaan soo booqday wasiiro anagoo hawshii gabagabadeedii ku jira tijaabadii caawa leerka taskarayntii ku jira ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo wasiir ku-xigeenka duulista hawada ayaana soo booqday waanu soo dhaweynaynaa alxamdulillah shirkadaha waxaan ku faraxsanay shaqadii aan dhowr bilood ka hor bilownay inay caawa gabagaba tahay oo loo diyaar garoobay xafladii iyo xarig jaristii idamka Ilaahay waxaan u mahadnaqaynaa raggii sida qiimaha nolol shaqeeyay hadalkayga iyo mahadnaqayga waxaan u dhigan doonaa xafladda weyn sawaadii mahad celinaya wasiirada ilaa maalintan bulshada sida joogtaa nolol shaqeynayay Yuusuf Geysna gurigiisa jeedo ku jira uu lagu soo rawaxay tadasana waxaad moodaysaa inuu meelaha jeedka degan yahay oo asaguna ma weyn soo hadlay ama sayidkan ugu yimaanay xajalada iyo dadaalka iyo dhalinyarada gelinaysan aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa reer maxamed mooge waxaan leeyahay garoonkii dhammaa dayactirkiisa iyo ilaalintiisa waa xaqiina xafladii weyneedna soo diyaar garooba runtii farxad weyn baa caawa noo tahay inaanu nimaadno garoonkii maxamed mooge iyadoo ay saacadu tahay 10kii habeenimo inaanu kormeer ku soo marno aniga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada Yuusuf Kayse garoonka oo runtii iftiimintiisii caawa aanu xariga ka tarnay runtii waxa kale oo mahad celinaya shirkadda garoonka dhistay oo runtii intii dhismahaasi uu socdayna aanu runtii aad u kala warhaynay oo aan oran karo waxa dhistay garoon dhameystiran
istaraatiijiyadda garoonka hadday noqoto iyo hadday dhinac walba noqoto shirkadda sanmadna saasaan ugu mahadcelinaya waxa mahadda iskale ilaahay ka sokow madaxweynaha qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro oo oofiyay ballanqaadkii uu sameeyay qaranka Soomaaliland gaar ahaan degmada Maxamed Mooge oo kamid ahayd degmooyinkii ugu waaweynaa aan xilligii mucaaradka codka ugu weyn caasimadda Soomaaliland aan ka helnay anagoo fulna ballanqaadkii madaxweynaha qaranku wuxuu ballan qaaday halkan inuu ka dhigi doono garoon casri ah oo habeen iyo maalinba lagu ciyaaro ballanqaadkii uu rumoobay sida caawaba ay arkaysaan 34 sanadood Soomaaliland jirtay waa markii ugu horeysay ee garoomo sidan oo kala dalka laga dhiso ma haddaana ilaahay ka soo waxa leh madaxweynaha ballanqaadka ku fiican madaxweynaha samirka badan madaxweynaha duqaadka badan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro oo kursiga ku fadhiya codkiini aad ku doorateen garoonkan waxa la idinku dhisay waa cashuurtiini weey waa wixii ay dawladda gashatay weey dhalinyarta ciyaaraha ee mas'uulka ka ahay farxad weyn bay u tahay garoonka waxa soo joogay isagoo boor leh isagoo roobku ku daayo isagoo aniga Yuusuf Kaysaan macaaradnahay oo siigadu ay ka kacso xukuumadii ma jirtayna ma jirin oo nu dhiirigelin dhalinyartan wax walba soo dhigtay